ninka guriceel lagu dilay laakiin waa garan kartaa guriceel waxa laga xukumaa dhuusamareeb waa laba ismagaalo isu dhow waxaana laga soo qabtay dhul hiiraan ka tirsan ninka nin dhul hiiraan ka tirsan isagoo geel la joogtaa laga soo qabtay way dileen way jir dileen aakhirkii waxay yiraahdeen ninkaanu noolaamayo aan isdaba dhigno saasayna ku dileen waxaana dilay nimanaan diinta islaamka saaxiib u ahayn oo aan lug ku lahayn oo dhiig yacabyaa oo sheekh shaakir madax ka yahay oo yuusuf goobe ku xigo oo ciidan meel u jooga inta keensaday yiri ninkaa ku shaandheeyay xabad saasaana lagu dilay ninkaas imaa kale yiraaheen dadkeena sufa maaha sidaas aawadeed hadda waxa u tagi karaba male wax u tagi karaba male saasayna ninka ku dileen baqayr xaq ah sidaasay ku dileen laakiin mabda'an kala wadana wuxuu yahay mid dawliya oo taageersan dawlad iyo mid jabhada oo waxdoon ah oo dadka dhiigiisa inuu dawlad ku noqdo raba saasaan u kala duwanna kii waa uu dilay hadii la yiri ma aysan keenin wax cadayn ah oo adilla run ah oo ama diiniya ama madaniya oo ninkaas in nin dilay la keenay ma jiraan qaabkaas lagu dilay gobolka waxa looga dareemay oo looga ogaaday hadda kuwa magacooda qarinahaya oo dhuusamareeb joogo hadda la heli karaa jira saacadan aan kula hadla la heli karaa jira marka nin walba haduu rabo ninkan alla ka dheerida qaba oo intaas joogay oo kibray waxa la yiri calayhi salaam muuse alla yiri allah boqonkaagi wuxuu yiri ilaahow fircoona joogo waa igu tumanaya sida awrka oo igu bardoodinaya wuxuu ku yiri ana macaaga ah ee kuguba bardoodiyay inuu aqbalo oo mudan yahay u tag waa nin xaq darra dadka kula tunta waa nimay biriid u tiri waa niman maxaad qabtaa la dhihin waa niman dawladna ka baqayn dad ninka la dilay maxamed cabdullaahi faarax khalafa la yira maamulka ma jiro waxa ka jira jabhad dadka layda isku sheegay cid u waafaqsanuna ma joogto dhuusamareeb waa nin asagu isku sheegay oo yiri waxaan ahay madaxweyne waa ogyihiin dawladdu waa ka warqabtaa mid gobolka ka warqabta oo cadaada u fadhida tana ka warqabta waxaan u malaynayaa hadda maanta dhalka waxa u weyn farmaajo waa ka warqaba waa ogyahay sababtoo ah waa nin reer dhuusamareebeeda waa nin cid walba ka warqaba waa nin xaalka ka warqaba marka ninkaasu waxa uu sameeyay hal ogaado dawladuna ha ogaato waa arxan darro waa aqli xumo waa caaq waa nin aan wuxuu ka cabsoonahayo maanta aysan jirin oo cid inay ciqaabta oo ka baqa aysan jirin waxaan marka codsanaynaa dawladda in ay arintaa wax ka qabato xasuuq amal waaye waa xasuuq dadkii weylaynayaan hantidoodii iyo maalkoodii iyo wixii oo dhan waa faragashadeen adaa mudan Ahmed Nuur Abdullah waxa weeye annaga waxaan nahay cabasho waxaan ku cabanaynaa ninkaas sida qaladka ah lagu dilay iyo dadka sida qaladka ah lagu haysto oo lagu xirxirayo oo lagu rafaadinayo baan ka cabanaynaa waxaan u cabanaynaa oo riboodka u gudbinaynaa maamulka hadda jira dalka ka jira oo cusub in ay wax ka qabtaan meeshaasi waa meel bacday dadkii lagu qarribay diin aan maaragtay wax looga xukumayn xeer Soomaalina aan wax looga xukumayn qarqoosh ah waxa weeye waxa la rabaa si bini aadanimada ku saabsan nimankaas dalkii iyo dadkii qarribay waxaan codsanaynaa in aan maamulna loo aqoonsan talana loo aqoonsan jabhad wareertay oo Soomaaliya oo meesha isugu tagta weeye in wax laga qabtaan codsanaynaa nin dadka masaakiinta oo dhibka oo herbaadiyahana la kala gaaro oo aan la isku layn oo wax laga qabto codsiga waa inta waxaan leenahay dawladda cusub in ay wax ka qabato oo ay maaragtay arinta fargelido nimankaasi waxay doonayaan dhibka noocaas dadkii dhigay oo gacnahooda dhiig ku yaal inay u aqoonsato meel yaani ay haystaan oo ciidamadoodu dhisan tahay oo ay dad wax ku xukumaan dad nama ku xukumaan cidna ma raacsana dad jojob ugu jiro xabsi ku jiro weeye
waxaan leenahay waxa laga qabto yaana loo aqoonsanin sidaasaan soo gudbinaynaa gobolkii oo dhan bay qaraabiyeen dadkii bay kala direen dadkii bay bahalkii muxuu laba isugu direen waxa weeye mid sharci islaamana ma fulinayaan mid maadiya oo bahalkii maxnaa ma fulinayaan dhaqankiina waa hor joogsadeen oo xataa dhaqankii waxay ku hor istaageen xabsiyada dadka way isaga guraan way isaga ridaan waxa dhacday haddeertaan waxa dhacday ninkaan intaysa dilin ka hor dad ay xabsiyada ku soo xireen oo u soo xireen safar oo cadaada u tig ayay ku soo xireen xabsi ay ku xireen waa loogu tagay waxay yiraahdeen nin askari oo u duulay maamulka galmudug u duulay oo galmudug ay qabatay ayaa ninka shacabka u haysana ninka shacabka ah way xireen waa xiraan jiray galmudug ninkii askariga ahaa oo ayaga ay ka qabteen markii sii daayeen ay ninkii sii daayeen